anigoo Janisan ka faa'iideysanayo waxaa guul u rajeynayaa xulka qaranka Soomaaliya oo galabta dhigooda South Sudan finalka kula ciyaari doono dalka Ethiopia caasimadda Addis Ababa. waxaa guul u rajeynayaa xulka qaranka Soomaaliya insha Allah waa wingareyn doontiin. sidoo kale South Sudan inta badan barooniyaashooda qofka la soo ciyaara ay garanayo ana hadda koor waxaa kula ciyaara under 20 iyo under 17 mar la ciyaaro waan dhaweyn. South Sudan inta badan baroonigooda waxay ciyaaraan wax highline la dhahay counter attack difaaci ka galayaan offside maanta oo ku raadinayaan. marka waxaa dhilaa xulka qaranka iska ilaaliya offside ka badan counter attack labada number 7 iyo mid ka ciyaar labadooda mid orod badan. marka waxaa dhilaa difaacyada number 2 iyo 3 ka ciyaaro labadooda mid ka orod badan mar baroon ku raadinayaan. waxaa dhilaa 11 ama 7 ka kaalmeeya difaaca si ay Janis u helin baroon ku soo korosaan inta badan strike-yaashooda waa dheer yihiin heede iyo waxaas ku raadinayaan. marka xulka qaranka waxaa dhilaa arintaas iska ilaaliya barooniyaasha faawlada ay ku galaysiin iska ilaaliya inta badan ay heede iyo waxaas ku tashtaan maadaama ay dheer yihiin South Sudan. hadii baroon ahaan la dhaho waxaa kala cabsan oo 100% Soomaalida inta badan ku laacibeen waayo wax yar oo kala cabsan Ronaldo iyo Messi iyo gaalada cadaan ka soo hareen. marka waxaan dhilaa barooni isdeji insha Allah yaa laga fikirin pressure-ka finalka. barooni waxa uu ciyaartay adinkoo baroonka loo caadi ciyaarayo guul ay idin rajeynaa. ciyaartan Soomaaliya ayaa waxay ku badin doontaa 2-1 fast half ku kala bixi doona insha Allah guul ay idin rajeynaa.